Junk foods waa eray lagu qeexo cuntooyinka ay ku badan yihiin tamarta, sokorta iyo baruurta ka timid, isla mar ahaantaana ay ku yar yihiin diet fiber-ka, borotiinada, fitamiinada, macdanta iyo dhammaan nafaqooyinka waxtarka u leh jirka aadanaha. Junk foods oo sidoo kaleeto loo yaqaano optional foods waxaa magacaasi loo siiyey ayaa ah in aysan wax faa'iido caafimaad ah inoo lahayn. Haddii uu qofku wax badan ka qaatana waxa ay siyaadiyaan khatarta uu ugu jiro cayilka iyo cudurrada waqtiga dheer lala noolaado ee loo yaqaano chronic diseaseska. Doolshaha, buskudyada noocyadooda kala duwan ee siyaalaha kala duwan loo farsameeyo, burgeriska, pizzada, shuklaatooyinka kala duwan, bataatiga processing-ka mare ee loo yaqaano chipska, cabitaanada energy drinkska iyo soft drinkska, dhammaantood waa junk foods. Loomana cuno baahi ee waxaa loo cunaa keliya for fantasy ama in lagu damaashado. Waxa ayna liddi ku yihiin caafimaadka qofka. Haddii qofku uu intaasi oo dhan ogyahay, maxaa ku qasbaya qofka inuu qaato cunto uu ogyahay inay khatar ku tahay caafimaadkiisa? Sababtu waa in cuntooyinkani yihiin kuwa leh dhadhan macaan oo ay naftu la ashqararto. Waxaana jirta fasiraad cilmi ah, scientific explanation, oo sheegaysa in dhadhanka macaan uu maskaxda siiyo dareen raaxo ah, kadibna maskaxdu waxa ay sii daysaa dheecaanka dopamine, waxaana la kiciyaa reward circuit, wuxuuna qofku dareemaa in uu rabo inuu sii cuno cuntadii dhadhanka lahayd. Markasta oo uu qofku sii cuno waxa macaan ee ay naftiisu jeclaanayso, waxaa siyaadaya reseptarada ay dopamine-ka ku dhagaydo, waxaana kor loo qaadayaa soo saaritaanka dopamine-ta, markaasi oo ay ka dhalanayso in ay kor u kacdo rabitaanka qofka uu rabo inuu sii badsado macmacaanka. Tanina waxa ay la mid tahay qaabka amaba mechanism-ka uu u dhaco waxa loo yaqaano addiction-ka ama la qabsiga uu qofku la qabsado maandooriyaha. Qofku haddii uu cuno qaadkaasi ma joojin karo, marba marka ka dambaysana wuxuu u baahnaanayaa inuu wax badan sii cuno. Cuntada macaan ee dhadhan kalena waa la mid, oo markasta oo qofku wax macmacaan aad u isticmaalo ma joojin karayo. Isticmaalka badan ee cuntooyinka junk foodska loo yaqaano waxa ay leeyihiin saameyn caafimaad darri oo xilliga dhow ah ama waxa loo yaqaano short term effects, waxaana ka mid ah qofka oo yeesha walwal joogto ah, daal, hurdada oo kugu xumaata, iyo waxa loo yaqaano lack of focus oo ah in qofku diiraddu ka xumaata amaba uu waayo. Waxa ay si gooni u qusaysaa dadka wax akhriya, khaasatan ardayda oo markii ay wax akhrinayaan fahamku ku adkaanayo. Firfircoonida ayaa sidoo kaleeto cadwaynaysa. Waxa kale oo ka dhasha cudurka loo yaqaano suuska. Sidoo kale haddii aad waqti dheer isticmaashana waxaa ka imaanaya waxa loo yaqaano long term effects amaba saameynta xilliga fog. Waxaana ka mid ah inuu qofku ka dhaxlo nooca labaad ee sonkorta amaba type 2 diabetic mellitus. Sidoo kale waxa uu qofku khatar ugu jiraa cudurrada wadnaha ku dhaco heart diseases. Waxa kale oo hubanti ah inay ku imaanayso cayil faraha ka baxa ama obesity. Waxaana dadka aadka u isticmaala junk foodska waqti dheer lagu arkaa dhiig kar iyo heerka kolestaroolka dhiigooda oo kor u kaca. Waxa kale oo ku yimaada depression ama hanjab iyo cudurrada cuntada la xiriira ee loo yaqaano eating disorders. Cudurradaasi dhammaantoodna waxaa lala xiriiriyaa cunooyinka ay ku badan yihiin sonkorta, cusbada iyo dufanka nooca loo yaqaano trans and saturated fats oo ah nooc dufanka ka mid ah oo aan caafimaadka u fiicnayn.